kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kale iyo barnaamijkii codka jaaliyadda telefishinka qaranka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada Oslo waxaa marti barnaamijka noogu ah Farxiye Maxamed gabar la yiraahdo Soomaaliyeed oo da'yar ah dhalinyaro ah dalkana degan mudooyinkii ugu dambeeyayna qaybo kamid ah warbaahinta dalka Norway jaraa'idadoodu ay qorayeen in gabadhan la guddoonsiiyay bilad sharaf ay siisay safaaradda Mareykanka ee dalka Norway dabcan waxaan raadinay Farxiye inaanu la kulanno aanu barnaamijkan aanu la yeelano waraysi gaaban oo ku saabsan sababta ay ku dhacday bilada la siiyay iyo xaaladda iyo sababaha loo siiyay si guud ah marka hore waxaan ku leeyahay Farxiye ku soo dhaw barnaamijkan telefishinka qaranka uu ku soo gudbinayo dalka Norway dadka Soomaaliyeed wax qabadkooda iyo xaaladaha guud aanu ula socono si aad ah oo ku soo dhaweynaya marka xiga waxaanu ka aragnay jaraa'idada sawirro ku dhigan oo adoo bilad lagu guddoonsiinayo sawir qurux badan bal arinta haddaad nooga sheekayso say ku dhacday bilowgeedii anoo glasses ka fadhino oo saddex qof ahaan saddex gabdhood soo markaas iska fadhinay wuxuu dhahay macalimka wuxuu dhahay wax qoran marka wiilala soo galay la shan wiil soo galay oo ma sheegi karo ma shaqay maadeen soo markaas shan wiimaada waxay dhahaan wiil oo glasskeena ah lacag ku leenahay dhahaan marka macalinka wuxuu ku dhamay ka baxa qolka hadda glass jira hadda imaanina way dhahaan way baxeen hada way soo noqdeen soo shan wiil bahaman mid soo galay kuwii kanu ka soo daba galay markaas albaabku wuxuu u furay wuxuu soo galay markaas macalinka dhahay soo galin bas markaas macalimku albaabka xirrabo markaas kii kale albaabka soo furay markaas cunaa ka qabta macalimka laba si cunaa ka qabanay ani marka ma si fiican u arkin waas ka mashquulsan meel kale iska fiirin bas waxa arko macalimka la ceejinayo oo wiilasha gadaashooda jooga oo rabaan inay yani inay ka fujiyaan man fujin kari waayeen marka hal mar asaaf waxa arko macalin guduud noqday oo xagaas laga qaftay isagoo iska celin kari laa waan kacay waxa sameeyay gaar aan hadii ma qaraaci karo dhiga badan iga xoog badan bas waxa arkay bahal ma aragtay ku soo dhaho xaaqina jiray waa qal xaaqinkaas ku kacabsiyo ku dhuftay bas markaas saa ku dhufan kaas macalinka sii daayay madax ma u dhuf meel un baa ku dhuftay bas ma xasuustay inaan ku dhuftay madaxa bal dib aan noqdo wiilasha iyo markay albaabka soo garaacayeen maxaysad baa socotay galaaska xisad waxay ahayd waqtiga ugu dambeysay ahayd iskoolka soo xamad jiran saddex qof un baa iska fadhinay anina ila ambarkiis maanta un baa galaaskiisa soo galay galaaskiisa weligiis ma gali jirin maanta soo galay macalinku marka idinku idin la joogay mise shaqo kale meemay iska fadhiyay wuxuu yani wuxuu dhahaa kaaba sameeya su'aal rabtaan i weydiiyo dhahay ninkii macalinka ahaa ciija lagu qabtay adigii baa qaatay xaaqin dabcan waana qaylisay say wax u dhacaanba wiilasha kale oo la socdo gadaal ka taagnaa waxba ma qabanin ma taagnaa marka aniga ma aragto oo rabay inaa ku dhufto miya arabna ka celiyo macalimka isagana uu jiiday yani aniga wiilkaas halka wiil waa waxa dagaalamay inta kale way soo weerareen markii macalimka rabay in qiraac dilaan kuwaas wayna rabeen soo wiilka aad u xoog badnaa kulli yani wala iskala jiiday wiilka yani xagaas albaabka saas wala jiiday wiilka marka ku dhuftan kaas cunaa qabtay waxa la socotay gabdho kale saddex baa ahaydeen gabdhahaas kale galaaskii kulina Soomaali baa ahayd waxa way Suudaan tuna waxa ka timaaday pool ka timaaday marka adaa Soomaali ana Soomaali marka geesinimada gabar Soomaaliyeed may ka timid gabdhihii kale oo dhaqa ma garanay ta kale Suudaan xitaa xoog yani geesidii ahaan jirtay bas ma garanay kulli way cabsadeen fadhi wiilal badan ahaayeen yani anu un bakay anu bas dhahay ka Farxiye ninkii waa badbaadaysaa la yiri qayladii waxay keentay inuu ninkii odaga ahaa laga fuqo ciijadii laga fujiyo kadib maxaa dhacay kadib bas marka marka albaabka ka xirnay furaa ku xirnay si u soo galay mar labaad macalimkii bas aniga markaas ma garanays yani waxaan rumaysanayna xaasimo iska fadhiistay markii dad macalimku u fadhiistay isagoo dhan miirka ka baxay isagoo dhan si kale u noqday u gari wax dhow xasuusan waayay dhakhtar oo ambalaas iyo waxyi male waxa u tagnay iragti kuwa ma aragtay oo macallimiinta kuwaas u tagnay iyo booliis inuu imaado ma xasuusto marka ambalaas ma imaan waayahay waa lagu kala tegay dhacdadii macalinkii waa tegay dabcan dad baa kula soo xiriiray oo biladii bal aan u soo daadegno markii ma lagu soo xariir isla markii wax yar sheekada markii dhacday bas marka isla markii ma aragtaa isbuuc ka bacdi wiilasha ay imaaday way hadideen igu dhahan lana marka waxa la dhahay wiilka marka yaa waxa la geelay ma aragtaa wala xiri mise wax un baa la sameeyay marka aniga markaas iyo gabar un baa jirtay tukal waxaas arkeen inta kale ma arkeen marka wiilka been buusha wuxuu dhahay macalinka ay qabtay
أنا إسقنا بنتي سواء إسقى قبته بس وإيماذن والله أنا عبسين والله كتير واجس يعني لبصنا كهر بيهاد لو يكون أفر توانكي شني توانكا عبسين كتير يعني booliiska markhaati baa lagaaga baahan ها مخاطي مركي دنبه لو يكون مركز أو كلا تجنا سكول كلا مركا أنا هذا أسدوكسي وسريع مركا هذا بس مركا دنبه ولا صح حريرة هلو ركالة بيتنا هو إنه أذيك مرخاتي فور إنه معلم كلها ها سنة كهر بيها ma tagtay هوانتا يوم سو مرخات فرنا مركا لبا بلود على حرويلك cabsiinta wiilasha kaaga timi maxay ahayd ha tegi baa lagu leeyahay وعبس ما أتجن ها أتجن أنينك أو مرخاتي فرن ها كتشوك هذيك لا أركض أنت سأسوي على اللي قدام maxaa kugu dhiirigeliyay maadaama gabar yar tahay in handadaadii markii lagu sameeyay inaad u dhiiratood markhaati ها واسكت يعني ما حبسن هذا كما حبسن واسكت يعني marka xukun baa dabcan ninkii ku dhaca ها حنكم كنا معلم كوالسي وقرن وحوه هلا ما قرنا من ويلش لو حال حويل حال حير لو بلود xusuustii waxay noqotay dib baa lagu soo raadiyey waxaa la yidhi gabadhii geesiyadda ahayd ee Soomaaliyeed ee dhalinyarada ahayd أنا ما إلوبي هذا أنا ويكسر نقدن له نودي كل عتونك هذا أنا هذا مرة لو بلو كانوا يصدق بعدنا مركي دب على السؤال حقول حد عمه أنا ما إلوب السنة مركي دب على كلها والي إرادنا yaa ku soo raadiyey ما معلم كإرادنا يو قبرها كله إرادنا مركي دب بس أنا مالك الصعدة عن مال أخرس كان آذي مركز قبر يقول هذا معلم كيكله محنا محي قروا حدا لا هذا والله هذا مركز قاس يقول هاي كالا waa kaaliyo xagee kaalisa wuxuu dhahay kaalay waxbaa la siinaya waxaan ku dhahay sabab waxaa dagaalkii dhacay waxaas waa maasantahay saas ubaxna u keenay biladda meesha lagu siinayo xaflad yar baa la qabto biladda lagu guddoonsan yaa goobjoog ka isugu yimid ardadii macallimiinta waxa macallimiin ma ahayn waa isaga ma iman karin wuxuu lahaa kuushu ku lahaa Denmark wiilkiisa iyo dad badan oo ma garanaya safaaradda ah safiirka Mareykanka iyo naagta ma aragtay naag oo ma garanaya ma xusto magaceeda Nuur wax u ah iyo dad badan oo saddex nooska kale oo la siinay bilad xitaa ma joogeen ehelkaagii waalidiintaada ma la ogolaan bas aniga biladda markii lagu siiyey dadkii Soomaaliyeed ee dalkan degana waa arkeen laakiin dadka familkaaga ama waalidiinta say u arkeen markii loo sheegay ani waa u sheegay iyagu way garanayaan inaa ku dhahay inaad midaa wax la isiinayo min yani waa u sheegay ani aabo inaa la isiinayo kuwii faraxdeen in aan inta badan ma dagaal badin inta badan ma galo dagaal waxaas soo markaas يعني أبى أنت قررنا يقول يعني ولي يسوي شيء فرحين ميل ما عرفت ميل أو هذاك شق كلنا أزقلنا يدي شيء بركة ضبع يعني حسدايا يعني في عنت هذا وحسن مثلا marka sawirradii la qaadaa dabcan soo baxay banaanka biladda waxa ku siinayay waxa la yiri safiirka Mareykanka Norway u fadhiya nooga sheekay xagee Mareykanka ka soo galeen أنا أنت ما بويدينين بس مركة أخرية نوبل كمان تتقنين كقاطع مريكان بوها so نوبل كحبي مريكان كساسة أنا بفهمه magacay loo bixiyay Nobelkaas magaciisa والله ما حاسسته من Nobelkii geesinimada ها geesinimada الله بس ما قرنا حلو كده ما حاسسته okay marka biladii iyo waxa lagu siiyay shahaadadii sawirra laga qaaday khudbada laga jeediyay meesha maxaa la yiri waa laga jeediyay inuu waxaan sameeyay alla dadka la siinayaa midaalad kula dhaho alla siinayaa Allah isaas markii daba aad nasiib waxaan ku weydiin lahaa dadka ajaanibta dalkan degan markii waxa la sheegaa dadku markay isdagaalaan iyo dib markuu dhaco carara nafta la wax isbadbaadiya ha dhex gelin meelaha shaqo ku lahayn maxaa ku kalifay adigana gasoodo gabar yar ana saas ahay dabeecadda saas أنا هذا الدجال أركو أنا حدا شق كلها ما دحق لها قف كنا أدو قف فرق سما لدو قف مارت أنا مثلا قف أركو أو لديلي أو أقانو أما قف جردري أنا ما كتير أنا ما دجال بدني من وان بروفي أنا قف كعامل كورس أنا وحفي بس أنا مركك ما فكرني كبد ما قرنا واسك من ديجي كلها ما قرنا we are proud of you aad baan kugu faraxsanahay dabcan dad badan oo Soomaaliya inta degan isha la isku haya cid kasto wax qabato ama Soomaaliya ama wax fiican muuqdaan anagu waa raacnaa ay dadkan u soo gudbinaa sida awgeed adiga ku soo raadinay inaan barnaamijkan ka duubno ma ku aqoon adna ma aqoon dabcan laakiin waa soo helnay dhalinyarada adiga kula mid ah Soomaalida halkan degan ee ku koray dabcan ku dhalatay adiga maadaama aad maanta aad hor fadhiso kaamirada telefishinka qaranka iyo Wardoono isla socda wax talo aad siin lahayd dadkaaga dhalinyarada halkan ku koray ma jiraan wax badan yani waxa dhii la dhalinyaro kala ah yani qof hadii arkaan oo misalan hor dagaal yina gelin ma fiicno dagaalkii waxaas ma fiicno man hadii ma farqsan bilaadi arkaan qof oo laga gardaran yahay kala ah inay cabsan waxaan dhii la qof inuu cabsan geesi ahaado yani noloshiisa waa garan qof noloshiisa cabsanaya man qofkii inuu ahaado geesi inuu xaq runta inuu sheego iyo waxa intaas un baa dhihi lahaa iyo
akhriskooda iyo diintooda waxaan ku fiicnaadaan gratulera